السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن مالي وناكسن هبين وناكسن wax kasta ay ku tahay wanaagsan kusoo dhawo channel Kasrubiyaan. Maanta ama galabta maxaa inii wadaa? Maanta waxaan rabaa inaan idin la qaybsado ama inii ka faa'iideeyo qaabka aan ilmahayga timaha ugu sameeyo. Gabadheeda yarta ah maasha Allah tabaarakallah. Timaheeda waxaan sameeyaa habeenka ay seexanayso. Maalinta aan dabay habeenka horeysa ayaan dhaqaa. Kadib waxaan sameeyaa saliid fiican ayaan mariyaa. Saliida markaan mariyana waan duuduubaa saad arkayseen. Waxaan ka dhigay 3 qaybood. Timaha ilmahaaga ku xiran tahay ama timaha adiga hooyada aan naftaada ay ku xiran tahay intay farbadnaan la egyihiin iyo intay maaragtay la egyihiin qaabka u duuduubaysid. Ayada timaheeda uma badna taas diraatay 3 xabo kaliya ayaan uga dhigay. Waxaan u mariyay saliid allaala saliida markaas adiga timahaaga naasibta timayooga isku mid ma ahan. Timahaaga iyo timaha ilmahaaga gabadhaada ama ilmahaaga oo dhan isku mid ma ahan. Marka waxaa muhiim ah inuu qofku yaqaano saliida mataqaanaa ama shaambada ama nafaqada timaha mataqaanaa timahaaga ama timaha gabadhaada u fiican oo mataqaanaa markaas naasibeyso inay mataqaanaa ogtoo taqaanid. Marka aniga saliid markaas ayada naasibta oo timaheeda mataqaanaa maasha Allah tabaarakallah uga dhigta ayaan soo mariyay. Habeenkii waan u mariyaa marka u qubeeyo wax yar u qalalaan kadib ayaan mariyaa. Kadibna waa u duuduubaa way seexdaan. Galabta dambe ama subaxa dambe ayaan waxaan sameeyaa waa u dabaa hadba qaabka markaas dabitaanka mataqaanaa u rabo iyo inta waqti aan u rabo inay u hayso ayaan ugu dabaa. Galabta waxaan doortay inaan qaabkan ugu dabo marka idinkana waa idinka faa'iideynayaa sidaan yara fudud ee easy-ga ah ee aan waqti badan ka qaadaneynin timihiina ilmihi yaraa mataqaanaa oo isagana mataqaanaa waxaa ka nasanayo oo madaxiina u leersanayo waa kaasa waa u dabaaya 3 xabaan ka dhigayaa qaybta dambe qaybta kalena waa arkaysiin saan dhaho insha Allah cunugteeda marka way iska raaxaysanaysaa iyadoo waxba iska daawanaysaa. Waxaa muhiim ah ilmaha marka timaha u dabeysid oo rabtid inaad timaha ilmaha u dabtid inaadan mataqaanaa xoog aad ugu dabin khasabna aad ugu dabin iyo dagaal. Ilmaha waxaa fiican inaad isaga mashquulisid sidii mataqaanaa adigana aad sida u rabtid timaha aad mataqaanaa uga bogatid. Haddii aad tiraahdid iiqa qabo timihii iiqa qabo xaggan waxa laga yaabaa ilmaha yar inuu ku karaxsado. Ilmaha mataqaanaa age-ka ilaa wixii mataqaanaa 10 ka hooseeyana waxa waaye ilaa 7 daqiiqo ma fadhin karaan. Waxa loogu talagalay inuu ilmahaas fadhiyo 7 daqiiqo kadib haddii uu yahay ilmo caafimaad qaba wuu kacayaa. Saas daraadeed waxaa ah gabdhaha markaa timaha u dabeysiin inaa mashquulisiin oo ama buug u dhiiftiin ay akhriyaan ama maxaa la dhahaye caagag yaryar iyo kalara yaryar iyo waxyaabaha jira ilmaha lagu mashquulimi. Khasab maaha inaa electronic u dhiiftid laakiin waxyaabo kale fara badan ayaa jira oo cunuga aad ku mashquulin kartid. Waa kaasa maasha Allah tabaarakallah gabadheydii halkaas mataqaanaa iska raaxaysanaysaa. Ana timihii 3 baan ka dhigay qaybtii dambe arkayseen. Hadda qaybtan dhinacan kale oo dhagta ayaan dabay. Sideedana timaha haddii aad rabtid inay mataqaanaa ku baxaan ilmaha inaa u dabtid waa muhiim u fiican tahay. Dabista gabdhaha yaryar maasha Allah u fiican tahay. Duuduubista soo kale timaha waa u fiican yihiin. Marka waa kaasa qaybtaasana mataqaanaa iyadana saana u soo dabay oo dhinaca dhagta ayaan soo dabay tana sidan ilmo walba sibuu madaxiisa ku qurux badan yahay ama uu naasibo. Marka sidii markaa ilmaha yarka ama gabadhaada yar hadii aad gabar haysatid qurux badan samee qaybtaana igu dambeyso ayadana 3 xabo ayaan ka soo dhigi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. Marka ayadana waa taasa waa sidii u duuduubneedu isku sii duba dhacayaan marka timaha habeenkii duuduubtid subaxiina aad shileynaysa ama galabta dambe waqtiga aad jaanis u heshay. Muhiimada ugu weyn ee timaha waxaa timahaaga iyo timaha gabadhaada in ay isku types yihiin inaa ogaatid. Waxaa laga yaabaa ilmahaaga saliid naasibta inayna adiga ku naasimin ama walaasheed ayna naasimin. Muhiimada timaha haddaad rabtid dhaqaalahooda iyo mataqaanaa koritaankooda inaad taqaanid ilma ayay yihiin. Timaha waxay leeyihiin abtirsi ayay leeyihiin. Isku mid ma noqon karaan labada qof ee walaalaha ah ama labada qof ee isdhalay. Saa daraadeed baro timaha ilmahaaga yarka ah ay adigu isku mid baatiin mise waa kala duwan tihiin mise labada gabdhood ee walaalaha ah timahooda waa kala duwan yihiin. Waxyaabaha aad ugu dhaqdo nafaqada saliidaha iyo waxyaabaha la midka ah. Marka maasha Allah tabaarakallah khiyaaray timihii intii aan qaybtin kala dabay waxaa waaye gadaal ka soo firfirteen. Marka haddii timaha gabadhaada xoogaa mataqaanaa ay yihiin timaha aan dabista mataqaanaa kuwa kanin ama
mataqaanaa cabaar haynin waxaad sameynaysaa afka u horeysa meesha maarta ugu dambeysa dabista ayay ka furfuranayaan ayaa waxaad sameynaysaa laastiga yaryar ee gabdhaha timaha loogu xiro ayaad ugu xiraysiin maanta waxaan idinla qaybsanayay ama galabta ay tahay waxaan idinla qaybsanayay timaha saan u dabo insha Allah timahana ogaada gabdhow kala barta timaha qolooyinka ay kala yihiin qaababka ay u kala baxaan sidii timahaas ay koritaankoodii healthigoodii caafimaadkoodii aad u wanaagsanaadaan oo u fiicnaadaan shaambooyinka badan la bedelayo uma fiicna timaha saliidaha sidoo kale uma fiicna marka waxaa muhiim ah timahaaga iyo timaha ilmahaaga hadaa rajo ka rabtid inaad ogaatid ikhyaarteeda sharafta leh ee kusoo birteen waxaan leeyahay soo dhawaada channelka waa channelkiini kuwa igu cusub ee hadda igu soo biiraan please hanaga ilaawina subscribe ka thumbs up